Deni radmale, dela laurun mamodai. Deni radmale, deni radmale, deni radmale, deni radmale, dela laurun mamodai. Deni radmale. Deni radmale, dela laurun moda. Dawaitu Somaliland wax dawladda oo adduunkan oo ixtiraafsan ma jiro innaga madax bannaanideedii la soo noqonnay shirkii Burco 1991 innaga is ixtiraafnay waxna waynu qabsanay laakiin waxa uu yidhaahaa qaramada midoobay Security Council baa uu yidhaahaa iyaguna inama fasixin wax dhibaato warkii uu sheegay wasiirka dowladda imaaraadku anigu kuma arkaynin Somaliland ma ictiraafsanin safaaradi looma jirto consuliyadi looma jirto intuba waa runtii waxaan kale la buubuuray ee lagu sii dardarsaday inama khuseeya intaas wax lura oo innaga iyo xidhiirkeennii imaaraadka waxyeelaya uma xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu sheegay in ay qiyaamo qaran galeen labadii madaxweyne kan uga joogiyo kii horeba isagoo aanay sababta heshiiska sida aragtaa runtu anigu arrintaasu arrinaan maanta isleedahay jawaabba way leedahay kollay aniga maaha qaranka kanu labada madaxweyne ee la eedeynay iyo golayaashuba go-aanadiisoo dhan way ka qayb galeen haddii madaxweyneyaashu eed leeyihiin dee giddigeen baa leh laakiin khiyaamo qaran bay galeen iyo maxkamad hala saaro iyo anigu warkaa ma hayo war maxkamadii lagu geeyo labada madaxweyne iyo cid kale toonna ma hayo golayaashana abruufgareeyey howlaha kan hadda lagu eedayno labada goloo wada fadhiya maalintii horena cabdiraxmaan cirre anigu aan maqnaayo maalintii hore ee dekedana cabdiraxmaan baa hogaaminayay oo labada goloo guddoominayay maalintii dambena anigaa guddoominayay isla goorjoogbo xildhibaanadii oo dhambina waa u codeeyey overwhelming majority-na way ku codeeyeen anigu meelay ka imanayso xaaraan bay ahaayeen waxaas ogolayaashu waxay soo saareen iyo qaranku wixii u goostay anigu cidda xalaalaynaysa garan maayo hagee looga kacaya waa geed baan arkaa erayadaas waa ereye gafa ilaahay intaana haynaga way gudoomiye tadhibka ay dadkani leeyihiin waa khiyaamo waxa weeye maadaama wasiir dowlihii arbax bedda imaaraadku yidhi Somaliland ma aqoonsan heshiisna lama dhigin madaxdii Somaliland ee kala duwanaana ay dadkani ku lahaayeen annaga heshiiska la galay wataasi sidee noqonaysaa madaxdeedii soo wax ma oran waan dhegaysanayay sacad madaxdeedii waxay tiri waxna anaaba goobjoog ah annagaa wada saxeexanay shirkadana annagaa wada saxeexanay tan kale garoonkana waanu saxeexanay iyagu ma rumaysanay mudane gudoomiye muddooyinkii u dambeeyey xukuumadda waxaa lagu eedeeyay xadhig dhalinyar Facebook aragtidooda ku qoray iyo sidoo kale boqor cismaan guur madow oo ka mid ah salaadiinta Somaliland xadhiggaa muddooyinkii ugu dambeeyey soo noqnoqonay sidaad u aragtaa waxaan u arkaa qofkii wax lid ku ah qarannimada Somalilandba dee xabas wuxuu mutaysanayaa maxkamad
marka horena xeerlaalintaa la xidhiidhay xeerlaalinta baa goosatay in arrintu ay maxkamad tahay muddada inta ugu hadhayna dee u xidhnaanaya ragga salaadiinta ee la socday xildhibaanada golaha guurtida ka mida bal iyaga hawshooda ka war waxaa la diri arrintaa waxay la tahay inaa wada tagtaan wasiirka arrimaha gudaha xaggaa kala kulan taariikhi ah oo guud ahaanba dadka Soomaaliyeed qalbiyadooda ku yeelan doona xusuus gaar ah ayaa maanta ka dhacay wadanka Hay'adda Imaaraadka Carabta taas oo markii ugu horeysay labada madaxweyne oo kala matalaya wadanka Soomaaliya iyo Somaliland ay kulan ku yeesheen wadankaasi. kulankan oo gacan qabadkiisa ay lahayd dawladda Imaaraadka Carabtu waa kii ugu horeeyay ee muddo 22 sanadood ay si foolka fool ah u wada fadhiistaan laba madaxweyne oo matalaya Somaliland iyo Soomaaliya. madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Siilaanyo waxay wada saxiixdeen baaq wadada u badanaynaya wada hadallada ay yeelan doonaan mustaqbalka labada wadan iyo iskaashiga ka dhaxayn doona. madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif oo ka hadlay kulankaasi ayaa waxa uu yiri waxa la gaaray kaalin niib jabin ah waxa aanaanu ku faraxsanahay in walaalahayaga reer waqooyi ay rabaan inaanu wada hadallo oo wada xaajoonno waxa uu ku daray sida aad ogsoon tihiin Soomaali oo dhammi waa isku asal isku af iyo isku diin sidaas daraadeed waxa aanu rajaynaynaa xal wada raali geliya dhammaan qaybaha Soomaaliya wada xaajoodyada noocaas ahi waxa ay u baahan yihiin waqti waxa aanaanu rajaynaynaa inay guulaystaan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Siilaanyo oo isaguna muujiyay diirad taas la mid ah ayaa waxa uu yidhi arrintani waxa ay wax ka qaban doontaa nabadda gobolka sida uu dhan yahay waxaanay gacan ka geysanaysaa la dagaalanka burcadbadeeda iyo argagixisada. Somaliland oo gooni uga baxday Soomaaliya sanadkii 1991 beesha caalamku ma ay ictiraafin. Mudane Siilaanyo waxa uu sheegay inuu rajaynayo in kulanka Dubai uu noqon doono tallaabadii ugu horeysay ee lagu gaaray aqoonsigaasi. waxa uu intaasi ku daray waxa aanu rajaynaynaa in ay saami ka qaadan doonto sidii beesha caalamku ay noogu aqoonsan lahayd dal goonidiisa u jira. waxa aanu doonaynaa inaanu wada shaqayno oo wada noolaanno wadan walibana uu sidiisa ahaado. waxa kale oo kulankan labada madaxweyne ee maanta ka muuqday kaalinta siyaasadda arrimaha dibadda ah ee dawladda Imaaraadku taagan tahay oo ah wada hadallada noocan oo kala ah ee gobolka gudihiisa ka imaada inay kaalin ka geystaan wax ka qabashada colaadaha. kulankaasi waxa uu barbar socday shir 2 maalmood ah oo adduunyadu kaga areysanaysay ka hortagga burcadbadeed ah oo ka dhacay magaalada Dubai. wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ee dawladda Isutaga Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Gargash ayaa yiri maanta waxa aanu aragnaa dad wada hadlay oo xiriiray iyaga oo eegaya dantooda. waxa uu intaasi raaciyay in dawladda Imaaraadka Carabtu ka warqabto in aan maalin iyo habeen lagu dhamayn karin damqasho iyo xanuun muddo badan soo taxnaa. sidaasi awgeed waxa aynu maanta markhaati ka nahay laxda taariikhi ah oo ay labada madaxweyne ay kulmeen saxiixayaana heshiiska ku saabsan sida loo wada hadlayo. dhawaaqaas oo hal bog ka kooban oo labada madaxweyne saxiixeen waxa loo bixiyay qoraalkii Dubai.